أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal kusoo dhawaada channelka aqoon official haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar muuqaalkan like garee saaxiibada la wadaag weli waxaan ku jirnaa xalinta imtixaankii dowladda fasalka 8aad 2023 maadada Soomaaliga waxaa muhiim ah inaad qortid marka hore magacaaga afaran roll number dugsiga iyo xarunta aad ku galaysid waxaan u gudbaynaa qaybta ku xigta oo qaybteeni koowaad ah waxayna ku saabsan tahay cilmi iyo hodan cilmi Ismaaciil Liibaan oo cilmi boodhari ku magac dheeraa waxa uu noolaa intii u dhaxaysay 1900 ilaa 1937 waxa uuna ku dhashay miyiga magaalada Hargeysa cilmi gabayo hiddo ayuu u lahaa waxa uuna ka dhaxlay abtigii oo abwaan gabayada ku caan baxay ahaa cilmi iyo hodan waxa ay iska barteen magaalada Berbera oo uu ku lahaa dukaan rootiga sameeya hodanna guri dukaanka ka soo horjeeda ayay deganeed hodan iyo cilmi sheeda ayay iska arki jireen marar ayay hodan dukaanka u soo doonan jirtay rooti intaa kadib jacaylkii xad dhaaf ah ayuu cilmi u qaaday hodan oo u diiday joog iyo jiifba jacaylka cilmi malgay waxa uu ahaa mid ka dhashay daymada dabeecadna boga iyo laabta ku barbaaray dhugfanaanta jacaylka iyo qoto dheeridiisa waxaa si dhab ah looga dhadhansanayaa gabayada faraha badan ee xiska cilmi ka soo burqanayay cilmi boodhari si dhibaatadii jacaylka iyo dhiga adeegii hodan dhagarteeda looga fogeeyo ayaa cilmi loo dhoofiyay magaalada Jabuuti sanadkii 1933 hase yeeshee cilmi boodhari marnaba ma uusan qancin mana quusan gabayo badan ayuuna ku sheegay in aanu hodan marnaba ilaabi doonin ilaa inta ay xasuustiisa xabaal galayso cilmi boodhari ugu dambeyntii waxa uu dhintay jacayl darnaa ee uu qabay hodan sanadkii 1937 waxaan u gudbaynaa marka qaybta goobagelinta sheekada ka imaaday ayaan u gudbaynaa ayaan xalinaynaa waxaa saaran 60 dhibcood ayaa saaran marka qaybtan waa 60 dhibcood goobagelinta waa 60 dhibcood kow cilmi boodhari magaciisa oo saddexan waxa uu ahaa cilmi xasan liibaan cilmi faarax liibaan cilmi Ismaaciil liibaan cilmi cumar liibaan jawaabta saxda ah waa xarafka ja cilmi Ismaaciil liibaan number 2 cilmi waxa uu noolaa muddadii u dhaxaysay 1900 ilaa 1937 waana jawaabta saxda ah oo xarafka ba ah cilmi waxa uu ku dhashay miyiga magaalada Hargeysa oo ah xarafka xa ayaan ka dooranaynaa oo Hargeysa ah su-aasha ku xigta afraad cilmi gabaya waxa uu ka dhaxlay cilmi gabayga ama gabayadu waxa uu ka dhaxlay adeerkii abtigii aabihii awowgii jawaabta saxda ah waa ta abtigii ayuu ka dhaxlay nambarka shanaad cilmi iyo hodan waxay iska barteen magaalada Berbera Jabuuti Hargeysa Muqdisho jawaabta saxda ah waa xarafka ba oo ah Berbera su-aasha lixaad jacaylkii cilmi malgay waxa uu ka dhashay sheeko socdaal daymada isbarasho jawaabta saxda ah waa xarafka ja daymada ayay noqonaysaa jacaylkii cilmi qoto dheeridiisa waxaa si dhab ah looga dhadhansanayay xarafka aan ka dooranayno waa xarafka xa gabayadiisii number 8 dhiga adeegii hodan darteed cilmi waxaa loo dhoofiyay magaalada Jabuuti Muqdisho Hargeysa Boorama jawaabta saxda ah waa ba oo Jabuuti ah cilmi in aanu marnaba qancin waxa uu ku sheegay heeso badan gabayo badan qoraallo badan sheekooyin badan jawaabta saxda ah waxay noqonaysaa xarafka ta gabayo badan nambarka u dambeeya ee 10aad cilmi ugu dambeyntii waxa uu u dhintay ba xanuun ta darxumo ja jacayl xa aano haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka ja oo ah jacayl qaybtani koowaad halka ayaa kusoo gabagabaynaynaa aad u mahadsantihiin